maanta waxaa xaruntan BBC-da ee New Broadcasting House lagu qabtay munaasabad weyn oo lagu sagootinayay qaar ka mid ah asxaabtii idaacadda BBC-da qaybta raadiyaha u shaqaynaysay muddo dheer. BBC Somali waxaa la aasaasay sanadkii 1958 bishii July. waxaana xilligaasi ay ka howlbilowday Bush House iyadoo xaruntan haddana ay ka howlgalaysay 8 sano ee ugu dambeysay. BBC-du waxay shaqaynaysaa muddo 60 sano ah. qofkii ugu horeeyay ee ka hadlayna waxa uu ahaa Xaaji Cabdi Ducaale oo sawirkiisa sida aad uga jeedaan bal la sawiran qaar ka mid ah madaxdii BBC-da ee xilligaasi barnaamijyada BBC-da ee haddaba Nairobi loo wareejiyay ayaa waxa ay noqonaysaa markii ugu horeysay waxaana jirta in halka TV-gu uu wali ka sii howlgali doono London ay xafladu sagootinta waxa ay ahayd xaflad weyn oo shahaado markaasi lagu guddoonsiinayay wariyaasha lixda ah ee la sii sagootinayay waxaana ka soo qayb galay marti fara badan oo BBC-da madaxda BBC-da ka mid ah kuwooda ugu sarreeya qaybaha dibadda la hadla waxaana ka mid ahaa madaxdaasi Yusuf Xasan oo horey BBC-da uga shaqayn jiray laakiin hadda ah xildhibaan wadanka Kenya. haddaba maxay tahay amaba ay ka dhigan tahay marka la eego in raadiyaha iyo qaybta digitalka BBC-da loo wareejiyo Nairobi? waxaa ka waramaya Solomon Mugero oo ah tababaraha BBC-da ee Afrika. tani waa marxalad muhiim u ah BBC qaybta caalamka, gaar ahaan BBC Afrika iyo BBC Somali, sababtoo ah waxaan raraynaa dhammaan howlaha raadiyaha ee London oo Nairobi aan geynaynaa. xaqiiqdii aad ayay u wanaagsanaan lahayd in aan u rarno magaalada Muqdisho, taas oo ah wadnaha dhagaystayaasheena Soomaalida. dhagaystayaasheena Soomaalida aad ayay daacad ugu yihiin BBC, waxayna ku soo xirnaayeen in ka badan 60 sano oo dhowaan aan u dabaaldegaynay. haddaba waa munaasabad aad muhiim u ah inaan barnaamijyada raadiyaha aan halkan ka rarno oo aan aad ugu dhoweyno dhagaystayaasheena daacadda inoo ah. haddaba sidee lagu sii joogtayn doonaa shaqadii ay wariyaasha hayeen London? dabcan waa kii aan ku dhawaaqnay in raadiyaha iyo website-ka iyo social media baraha bulshada dhammaantood ay u guurayaan Nairobi oo halkaasi laga soo jeedin doona. waxaa haraya dhagaystayaasha qaarkood isku qaldaya, laakiin telefishinka BBC Somali uu haraya oo halkan ayuu joogayaa. marka inta ka harsan telefishinka waxay ku wada wareegayaan Nairobi. marka si loo fiiriyo waa xaflad murugo leh isla markaasna farxad leh. maxaa yeelay murugtu waxaa waaye rag odayaal ah oo akhyaar ah oo sharaf leh oo maaragtay aad aan u jecelnahay oo aad u ixtiraamna ayaan macasalaamaynaynaa. laakiin farxaddana waxay tahay dhagaystayaasha ayaan u dhowaanay dad cusub oo dhalinyaro ah oo baraha bulshada iyo arrimahaasi ku takhasusay oo aad macallimiin uga ah ayaa hawshii qabanaya wax hadda ka dambeeya. haddaba dadkii hore uga shaqayn jiray BBC Somali sidee u arkaan arrintani? waxaa ka mid ah xildhibaan Yusuf Xasan iyo Cabdisalaan Harari. BBC-du waa idaacad xarunteeda ay tahay London, idaacad Ingiriis, xagga dhaqanka, xagga siyaasadda iyo xagga dowliyadda iyo afkaba idaacad Ingiriis oo iska leeyihiin oo meel u kacaynin. laakiinse waa isbeddelka adduunka ka dhacay bay muujinaysaa maanta in BBC-da ay u soo wareegtay Afrika oo ay xarun ku leedahay magaalada Nairobi oo anigu xildhibaanka ka ahay. marka isbeddelkaasi run ahaantii waa isbeddel loo baahnaa, wax weynna u qaban doona fikradda laga qabo BBC-da. waana soo dhawaynaynaa. wallaahi wanaagna way keeni kartaa oo dadka dhagaystayaashaaba lagu dhowaanaya. hadba se looga shaqeeyay ku xidhan tahay. guul baanan idin rajaynayaa, laakiin waxaa la odhan karaa waa tallaabo wanaagsan. laakiin mar kasta waxaa lagu qiimayn doonaa waxa ka soo baxa. haddaba markan waxaa igu soo biiray Cabdinuur Sheekh Maxamed oo BBC Somali la soo shaqaynayay muddo ka badan 30 sano iyo Axmed Cabdinuur oo isaguna khadka ku jira laanta af Soomaaliga ee BBC-da qaybta warqabadka jooga. waxaan ku bilaabayaa Axmed ayaan ku bilaabayaa oo aan su'aasha ugu horeysa aan weydiinaya. Axmed, su'aasha ugu horeysa haddaan ku weydiiyo bal sidee ahayd markii aad BBC-da aad ku soo biirayseen? waa mahadsantahay Farxaan. waxay ahayd si ka duwan sida ay maanta tahay marka la eego farsamo ahaan iyo tirada shaqaalaha ka shaqeynaya intaba. farsamadu waxay ahayd tii hore gabowday muddada dheer lagu soo shaqeynayay, inkastoo waqtigeedii ay ahayd tan ugu fiican
marka la eego istuudiyaasha iyo qalabka kale ee makiinadaha wax lagu duubo kuwa ugu fiican ay haysatay laakiin haddana marka loo eego maanta meesha ay joogto aad ay u kala duwan yihiin tirada shaqaaluhuna maanta inta ay la eg yihiin rubaceed ma dhammayn marka sidaas ayay xaaladeedu ahayd berigaas waa gartay cabdinuur sheekh maxamed da'da kule in la sheegay inta badan ma jeclid muddadaas 30 sanaad ka soo shaqaynaysay waad joogtay bal waxa ugu weynaad ka oran karto BBC-da sheegtay hadda 30 sano afkaabad ku dhufatay haye intaanu qarqarinayna intaas runtii BBC-dii hore iyo BBC-dan sida Axmed uu sheegay farqi weyn baa u dhaxeeya markii aanu ku soo biirnay sagaashameeyadii bilowgeedii waxaan aad u la yaabi jirnay qalabkii lagu shaqaynayay teeb baa wax lagu garaaci jiray annaga kooxay ugu horreeyay oo tarjuman jiray baan ahayn maadaama reer Muqdisho iyo Soomaaliya aan ka nimid af Soomaaligii iyo aan ku shaqayn jirnay khiyaartii kale naga horreysay oo ama aan ugu nimid meesha laakiin warka Ingiriiska lagu diyaariyo toos bay hawada ugu tarjuman jireen makiinadaha lagu shaqayn jiray qaarkood teleprint baa mid la dhihi jiray makiinaduhu waa iska tape iska ahaayeen teleprintska qeyladiisa markuu wax daabacayo baqbaqdiisa waxa moodaa makiinada dhagax jabisa marka si weyn baa xagga farsamada iyo wixii dhan isu bedeleen maantana waad arkaysaayo waxa weeye warkii waagii hore intii la rabaa la iska hadli jiray laakiin hadda waxa weeye short and sharp wuxuu dhan in noqdaan wax yar oo kooban oo macno leh waan gartay dadka inta badan waxay ka hadlaan cabdinuur ku soo laabanaya Axmed in wax weyn ay BBC-du qabatay gaar ahaan marka xogta la yiraahdo intii dagaalada wadanka Soomaaliya ka socdeen adigana Muqdisho aad marka soo warrami jirtay haddaad taan oo dulmarto ahmiyadda BBC-da raadiyo u leeyahay Soomaalida farxan waa run aad ayaa wax uga jiraan arrintaas Muqdisho ka shaqaynayay mar waxaa jirtay horta wax shaqaynayaba oo raadiyaala aysan jirin magaalada markii dawladdii ay dhacday agagaaraheeda markii dambena waxaa furmay warbaahin gaara oo maaragtay kooxo kala duwan ay gacanta ku hayaan ama raadiyo ha noqoto ama jaraa'id ha noqoto marka meesha ay ku yaalaan oo keliya ayay arrimahoodu ku koobnaayeen BBC-du marka waxay noqotay meesha keliya war Soomaaliyeed oo saxa laga helo ama koonfur ama waqooyi ama Kenya ilaa Ethiopia meesha isu keenaysay oo wararka Soomaalida oo saxa oo la isku haleyn karo ay ka soo baxaan bay waa gartay Axmed ma santahay marka waxaan jeclahay bal inaan BBC-da ka gudubno oo si shakhsiyana si daawadayaasha BBC-da ee telefishinka dabcan halkan London buu ka sii shaqayn doonaa inaad bal ka hadasho wixii kugu yaabka badnaa Cabdinuur intaas aad ka shaqaynaysaa BBC-da waa tahay in yar aan ku daro inta Axmed dadku waxay moodaan dagaalada sokeeye dadka gudaha kaliya inay saameeyeen dadka qurbaha annaga lafteeda waa na saameeyeen waxaan xasuustaa tusaale laanta Xawsaha ayaa gabar wariyaha aad loo jeclaa ay dhimatay dadkii dhan wada ooyaan maalinta shaqada nimid annaga Soomaalidu waa iswada fiirinay mase wax ooyay lama arko laakiin Allah u naxariisto ibaan iska leenahay mar dambaan gartay waxaan isir aan weydiiyay kulligay waxaan traumada la yiraahdo qulub baaba nagu wada jiraba sidaan maalin walba u tabanayna war 20 iyo 30 iyo 40 iyo 50 iyo 100 baa qarax iyo madfac iyo ku dhimatay marka dadka gudaha sida ay u saameysay physically si la taaban karo laakiin dadka dibadda maskaxiyan iyo qalbi ahaan ay dagaalada sokeeye u saameeyeen kugu xisaab badnaa runtii aad iyo aad baa maaragtay aanan soo koobi karin waxyaaba igu xisaab badnaa waxay ahayd sida dadku ay u aaminaan BBC-da iyo sida ay u aaminsan yihiin warkaas in lagu daro waliba la yiraahdo BBC-da sheegtay lagama daba hadlayo waxaad garanaysaa dadku marka ay maartay ku soo wacayaan markay ku dhageysanayaan inay og yihiin warka kan labadii dhinacba inay ka helayaan hal dhinac kaliya isa ka helayaan waan gartay Axmed wixii kugu yaabka badnaa intaad BBC-da ka shaqaynaysay waxaa jirtay sheeko BBC-du sii daysay oo ahayd falaaska ama jermuuska shaaha lagu shubto in la yiri cuduraa laga qaadaa waxay ka dhacday sheekadaas waqooyi bari Kenya marka dadkii falaasyadii ama jermuusyadii dhan iska jajabiyeen maalintii dambe waxaa la yiri been bay ahayd oo waxba kama jiraan marka maalintii ku xigtay waxay noqotay in haddana suuqii lagu yaaco jermuusyadii dib loo soo iibsado marka yani waxay ku tusaysaa saamaynta ay leedahay BBC-du iyo wartabinteedu waxaa jira hadda sidaan ognahay baraha bulshada wax la yiraahdo oo warku meel walba u yaallo laakiin wax la isku haleyn karo maahan cid walbana taas waa ogtahay marka waxa saxda ah ee xaqiiqada ah BBC-yaa loo soo doontaa waan gartay marka raadiyo ka waran marka ahmiyadiisii wali way taagan tahay inkastoo social media ha sheegtay uu jiro
aad iyo aad u taagan tahay waayo annaga dadkeenna marka la eego Soomaalida meel kastoo ay joogaan wadanka gudihiisa ama wadamada deeriska Afrika ahaan markaan ka hadlayno way yar yihiin dadka inta heli karta telefishinkan hadda aan ka hadlayno marka weli raadiyo muhiimad ay u leeyahay daqiiqad wax ka yar baan haysanaa marka laba eray maxaad oran lahayd wariyaasha cusub ee hadda soo barbaaraya kuwa BBC-da ku soo biirayaba waxaan leeyahay waxa aad tabinaysaan iska hubiya mar walba wax aad uga taxadirteen ha noqdeen saameyn badan ay ku leeyihiin wararka BBC-da Soomaalida marka biyo kama dhibcaan waa inay noqdaan iska hubiya Cabdi Nuur adiguna waa naga nasiib badan yihiin casri digital ay la kulmeen oo wax badan ay nooga fiican yihiin oo ay noo sahlayaan laakiin sida Axmed sheegay way iska hubiyaan mar walba magacyada shisheeyaha soo kala ha iska hubiyaan ha ku tala galaana cid inaysan ku dayan maadaama laga yaabo cid aad ku dayanaysid inaaba aad ka fiicnaan karayso waan gartay marka adiga barnaamijka kugu marti qaadaya caawa inaad noo soo xirto Cabdi Nuur adiga daawadayaasha daawadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka caawa tan iyo kulankeena dambe sidaas iyo nabad geliyo